shirkan oo muddadii uu socday xoogga lagu saaray habka ugu wanaagsan ee lagu yareyn karo saboolnimada ka jirta Soomaaliya ayaa qayb ka ah kulamo taxane ah oo maalmihii dambe ka socday caasimadda Puntland ee Garowe kuwaas oo looga tashanayay qorshaha sagaalaad ee qaranka Soomaaliyeed uu yeelan doono. xarunta dhexe ee wasaaradda qorsheynta ee magaalada Garowe ayaa lagu qabtay shirka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha qorsheynta Soomaaliya iyo Puntland, gudoomiyaha bangiyada Puntland, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda Puntland iyo khubaro kale, waxaana intii uu socday lagu soo bandhigay muhiimadda uu qorshahani dalka u leeyahay. wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydiid oo shir gudoomiye kulanka ayaa sheegay in la tashiyadan laga sameynayo qorshaha qaranka Soomaaliya oo qayb ka yahay horumarinta wada shaqeynta kala dhaxaysa dowladda federaalka. shirkaana si aad u socotaan laba bari soo socday kan iyo barina waa sii socdaa waana shir taxana ah. This is to break the ice. waxay maanaysaa 5 jeer oo kale in arinta la iska soo wada noqdo oo la wada shaqeeyo. marka I hope inaan dhabar adeeg loo yeesho in la isku soo diyaariyo waxaan anagu dawladda cusub ee Puntland aan aaminsanahay we are not selling the agenda ma ka qayb galayna shirka soo aan ka qayb galayna waa in ajandada wax ka leenahay waa in wax ka macnaha ku yeelanaa war sharaabka oo macnaha si loo sameynayo. marka waxyaalaha waaweyn aan dawladda aan kula shaqeynayna dowladda federaalka waxa kamid ah in aan hay'adaha dawladda dhamaan ee Puntland in ay ayana qayb noqdaan waxa oo waxay ka hadlayso wasaaradda qorsheynta oo laga maarmaanta in wada shaqeyn jirto iyo contribution at every level. Dr. Maxamed Xuseen oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada laga leeyahay sameynta qorshahan sagaalaad. qorshahaas waxa weeyaan waa qorshe cusub oo wadanka lagu hagi doono 5 sanadood soo socota laga bilaabo sanadka 2020 ilaa 2024. waxaan filayaa in ogtiin qorshaha hadda lagu shaqeeyo waxa weeyaan waa kii 8aad 2017 la hirgeliyay waxaanu dhamaanaya December sanadkan. marka qorshahan cusub ee hadaynu wada tashigiisa halkan u fadhinaa wuxuu bedeli doonaa kaas. marka taa laga yimaado arinta poverty-gu sida ogtiin wadan 30 sanadood dawladda kaabayaasha dhaqaalaha iyo inay dhaqaalu ay burbureen iyo colaadaha wadanka baahiyo aad u fara badan baa jira. marka laga eego xitaa fikir ahaan practical base marka laga eego waa inaynu poverty-gu inuu priority noqdo oo salka iyo asaaska magaranaysa ay horumarka wadanka arin basekiisa noqoto.